xuseen sanadkii 60 yaziid ibnu mucaawiya markii baycada lala galay xuseen kama mid ahayn dadkii baycada la galay. dabeetana niman reer kuufa oo ciraaq degan ayaa rasaa'il u soo diray oo leh hadaanu bayca kula gelaynaayena soo gaadh, maanan bayco lamaanan gelin, yaziid hadaanu kula gelaynaayena soo gaadh. waxay culamaa'i taariikh tilmaamaan xawaali 500 kitaab oo risaale ayay u soo direen ahlu kuufa. 500 oo waraaqood oo dalab wada ah adaanu rabnaa inaad madax noqoto ayay u soo direen. dabeetana wuxuu damcay reer ciraaq inuu iska hubiyo. wuxuu u diray in adeerkii muslim ibnu caqiil ibn abi aalib ayuu u diray in adeerkii wuu yidhi bal nimankaa warkooda soo hubi reer ciraaq waxay igu yeedhayaan. wuu yimi. markii uu yimi ee u arkay dadku inay xuseen doonayaanna baycuu uga qaaday. daaruhani ibnu curwa nin la yidhaahdo gurigiisa buu bayco kaga qaaday. yaziid ibnu mucaawiya ayaa warkii shaam ugu tegey oo sheegaya in reer kuufi ay bayca uu qaaday ninkaasi oo uu ku soo socdo alxusein ibn alcaliyi inuu iman doono. dabeetana wuxuu la hadlay cubaydullaahi ibnu zayaad oo waaligiisii masar joogaya ayuu yaziid la hadlay isagoo raba liyucaalija hadihi alqadiya, yacni inuu arrinkaa u wax ka qabto. manuu farin walam ya'murhu biqatli, xuseen hala dilana ma farin, laakiin arrintaa kacdoonkaa in wax laga qabto ayaa la soo faray. cabdillaahi ibnu zayaad cubaydullaahi ibnu zayaad ayaa soo galay magaalada kuufa. dabeetana wuu waraystay. wuxuu ogaaday ninka la yidhaahda hani ibnu curwa daartiisa inay tahay meesha dadku baycada ku dhiibayaan oo loogu qaadayo bayco. reer kuufa intoodii badnaad ay bayca la gelayaan alxusein ibn alcaliy oo uu qaadayo muslim ibnu caqiil u qaadayo. kadib ayuu muslim ibnu caqiil markuu ogaaday ninkan inuu magaalada soo galay ayuu daartii madaxtooyada ku weeraray isagoo 4,000 oo ciraaqiyiina kuufiyiina wata. dabeetana cubaydillaahi ibnu zayaad baa u soo baxay, wuu u khudbadeeyey, tarkiib iyo tarhiib buu sameeyey. ciidankii shaam baa soo socda, reer kuufa waxba tari maysaan, war iska kala taga buu ku yidhi. bacda duhur bay ahayd khudbadda dabadeed lam yabqa ilaa 30 rajulan maca muslim ibnu caqiil. 30 nin baa ku soo hadhay. 40,000 waraaqaad diraya lahana soo gaadh, waa iska kala tageen. 30 baa ku soo hadhay. gabalku muu dhicin ilaa 30kiina waa ka kala tageen. keligii muslim ibnu caqiil ayaa gurigi keligii ku soo hadhay. dabeetana waa la soo qabtay. cubaydillaahi ibnu zayaad baa soo qabtay. waxaanuu rabay inuu dilo. wuxuuhi inta aanad idilin iyo ogolow haddaba xuseenkii beenta loo sheega aan idhaahdo war meeshaada joog, ciidana kuuma soo socotee u dir buu yidhi warka. risaaluu u diray. alxuseen ibnu alcaliy uu leeyay irjic biahlik walaa yagurannaka ahlu kuufa faina ahlu kuufa qad kadabuuka wakadabuunii walaysa likaadibin ra'yun. ku noqo buu yidhi meeshaadii, reerkana dib u celi. ahlu kuufa adna waa ku beeniyeen, adna way beeniyeen. beenaalana ra'yi ma leh ee nimankaa dib ha ugu imani. muslim ibnu caqiil waxaa la dilay yowmu carafa. cubaydullaahi ibnu zayaad qad qatal muslim ibnu caqiil yowmu carafa. laakiin xuseen waraaqdii may soo gaadhin. yowmu tarwiya buu ka soo baxay maka. xuseenna yowmu tarwiya ayuu maka ka soo baxay. ninkii uu dirtee lahaa waxaan kuu qaadayna waxaaba la dilay maalintii ku xigtay baanatu soo baxay. dhexda markuu soo socday, markuu soo baxayay xuseen waxa uu yimi saxaabo tiro badan oo dhammaantood warkaa markay maqleen waaninaya. uu ka mid yahay ibnu cabbaas, ibnu cumar, ibnu zubayr, ibnu camar, maxamed ibnu alxanafiya. raggaasoo dhan baa u yimi iyagoo leh joog. bale cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu ku yidhi inii muxadithuka xadiiثa ina jibriila ata الnabiya fakhayarahu bayna الdunya wاlآakhira faاkhtaara الآakhira walam yurid الdunya wainaka bidcaة minhu wallahi laa yaliiha axadu minkum abada wma sarafaha allahu cankum ila liladii huwa khayru lakum.
فأبى أن يرجع فاعتنقه وبكى وقال أستودعك الله من قتيل. رواه سفيان بسند صحيح. wuxuu ku yidhi cabdillaahi bni cumar waryaa xuseenow jibriil baa nebi maxamed u yimi calayhi salaatu wasalaam oo doorasiiyey adduuniya aakhiro. dabeetana nebigu wuxuu doortay aakhiro, adduun muu dooranin. adiguna qayb ka midaa tay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, bidcatun minhu baa tay, awow buu kuu yahay. ilaahay baan ku dhaartay mid idinka ka mida inaanu madax noqonaynin, ee wax ka khayr badan baa ilaahay idinka meel idiin dhigaye noqo oo waxba madaxnimadaa ha doonanin. waa diiday, wuu ku adkaystay xuseen. dabeetana intuu mucaanaqeeyo ooyey ayuu yidhi waa ku nabadgelyeynaya, waadse dhibanaysaa. ibnu cabbaas ayaa u yimi lowlaa an yazriyanii. ibnu cabbaas wuxuu ku leeyahay haddii aanan ka cabsanaynin an yuciibanii oo yucayirani innaas bi wa bik, aniga iyo adigaba dadku haddaanayna ceebaynaynin, timaha intaan ku qabto ayaan ku hayn lahaa, marnaba igamaad baxsan kartee. ee waxaan ka cabsanayaa in la yidhaahdo ahlu beytkii baa isjiidjiidaya, intaasaan ka baqayaa ee kuma sii daaya buu leeya inaad baxdo. cabdullaahi ibnu zubayr baa u yimi, wuxuu ku yidhi ayna tadhab? alxuseenow xaggaad qabanaysaa? ilaa qowmin qataluu abaak wa tacanuu akhaak. waxaad ku socotaa buu leeyahay reer kuufa oo ciraaq ah oo kuwii aabbahaa dilaya, walaalkaana ceebaynayey, miyaad ku socotaa buu ku leeyahy. ka joog buu isna leeyahy. waa wada diiday. xuseen wuxuu ku adkaystay inuu baxo, dabeetana wuu baxay. dhexda markuu marayo ayaa waxaa u timi waraaqdii uu muslim ibnu caqiil u soo diray. taanu gaadhin meeshii bay waraaqi u timi loo sheegayo. dabeetana wuxuu isku dayay inuu xagga shaam u weecdo. waxa u yimi laakiin ciidan 1000 nin ah, alxar ibnu yaziid atamiimi uu wato. dabeetana way u diideen. waxaa karbala meesha la yidhaahdo ku soo gaadhay ciidan uu wato camar ibnu sacd ibnu abi waqaas ninuu wato, iyo shamar ibnu diljawshan iyo xuseyn ibnu tamiim. dabeetana wuxuu weydiistay 3 shay. 3 shay baan idin doorasiinayaa buu leeyahy. inay ogolaataan yaziid inaan u tago oo aan la baycaada la galo. inaa ogolaataan inaan shaam qabto oo yaziid u tago oo bayca la galo, waayo wuxuu ogyahay inaanu yaziid dilaynin. amase inay ogolaataan inaan iska noqdo madiina ku noqdo, amase inay ogolaataan goobaha jihaadka islaamigii ka socdo goob ka mida inaan goob lagu dirirayo tago. 3daa midun yeela buu leeyahay. ima inaan yaziid u tago, inaan madiina dib ugu noqdo, iyo inaan tago maxay goobaha laga jihaatamayo. ibnu jariir atabari min ariiqin xasan buu ku soo saaraya weliba. laakiin waxay yidhahdeen laa ilaa calaa xukmi cubaydillaahi ibnu zayaad. meel kale tegi maysid, wuxuunbaad tegaysaa cubaydillaahi ibnu zayaad baad xukumkiisa u dhaadhacaysaa. waa ninkii dilay muslim ibnu caqiil bay leeyiin, baad xukumkiisa u dhaadhacaysaa. ninkoodii ciidanka watay alxar ibnu yaziid la yidhaahdo ayaa wuxuu ku yidhi nimankii kale madaxda ahaa, warba ninka waxaa idinleba ka aqbali waayeysa. haddii turkiya daylam idin weydiistaan buu leeyahy, maa xalla lakum an turuduu. muslim inuu idin weydiistaan arrintan daaye, haddii ay idin weydiistaan dad kale idinmay bannaanaateen inaad ka aqbasheen mooyaane 3datan. waxay yidhahdeen ma aqbalayno. cabdillaahi ibnu zayaad unbuu xukumkiisa u tegaya. alxar faraskiisuu cagta ku dhufta. dabeetana xuseen oo waxoogaa yari la socoto ayuu u tegay, waxaan soo dangaadhaynin. markuu ku soo socday ayay moodeen inuu dagaalka bilaabayo. dabeetana bahalkiisii taraskiisiibuu xagga kale u rogay si uu u tusiyo inaanu la dagaalamaynin. dabeetana wuu u yimi, wuu salaama, waxaanu u ballan qaaday inuu difaacayo. dib wuxuu ugu noqday ciidankiiyo dagaal buu bilaabay. isagana waa la dilay, isna 2 nin buu dilay.
way ka diideen alxuseen ibnu alcaliy saddexdii midnaba dagaalkay ku soo qaadeen. dabeetana raggii la socday waxay isku dayeen inay difaacaan. mid baa loo dilay, kolba mid baa la dilayay, ilaa uu isagoo quri soo baxay keligii uu soo hadhayay. intuu kafantiisa xidhay ayuu isna dagaalamay ilaa iyo shamr ibnu diljawshan ninka la yidhaahdaa uu waran ku dhuftay oo warankaasi ku dhacay. nin kalena la tilmaamo sanaan ibnu anas annakhaciy, kaasina uu madaxiisa ka gooyey. qisada xuseen intaas bay ku koobantay. karbalaa baa lagu dilay. yaa lala dilay xuseen? xuseen waxaa lala dilay aali beytkiisi xawaaley 20 ayay meesha ku dhinteen dad gaadhaya. waxaa la dilay min awlaadi caliy abi bakr ibn alcaliy wa muxamed wa cuثmaan wa jacfar walcabaas 5 oo cali dhalay baa lala dilay. waxaa lala dilay min awlaadi xuseen abu bakr wa cumar wa cuثmaan wa caliy alakbar wa cabdallah. waxaa lala dilay min awlaadi alxasan abu bakr cumar cabdallah alqaasim. waxaa lala dilay min awlaadi caqiil jacfar cabdallah cabdiraxmaan cabdillaahi bnu muslim ibnu caqiil. waxaa lala dilay min awlaadi cabdillaahi bnu jacfar cawn iyo muxamed. u fiirso, xuseen iyo caliy iyo saxaabada waxaa shiicadu sheegaysa inaanay waxba ka jirinin. caliy ibn abi aalib samaa abna'ahu ababakr wa cuثmaan. xuseenna samaa abna'ah abubakr wa cumar wa cuثmaan. 3 nina uu nacdalaya ama u arkay inay wax ka boobeen, miyaad carruurtaada u bixin lahayd? may suurtagal tahay dadka intaad ugu necabtahay inaad asmaada uga dhigto magacyada carruurtaada? macquul maaha. yani waxay sheegayaan oo dham in khuraafo tahay bay tilmaamaysaa. cali baa u bixiyey abubakar iyo cuثmaan kuwu dhalay. xuseen laftiisa ilmihiisa u bixiyey 3dii khaliifa ka horreeyeyba, abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo caliy alakbar buu u bixiyey. xasan baa carruurtiisii u bixiyey abubakar iyo cumar. idan inay dhammaantood la baxaan magacyada cumar iyo abibakar iyo cuثmaan ay soo celceliyaan, maca dalik la yidhaahdo cumar iyo abibakar iyo cuثmaan bay col la ahaayeen ama ay wax ka dhacay, wax suurtagala maaha. idan waxa laaliya waxay sheegayaanna waxba kama dhicin. haddii xuseen madaxa la gooyey faqad qutila min qablihi alambiyaa. qudima ra'su yaxya calayhi salaam mahran libagiya. nabiyullaahi yaxya waxaa la yidhahaa madaxa inta laga jaray ayaa naag xun loo hadiyeeyey madaxiisii. nabiyullaahi zakariya la dilay. ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul qad jaa'akum rusulu min qabli bilbayinaati wa biladii qultum falima qataltumuuhum in kuntum saadiqiin. idan alambiyaau qad qutiluu. mana dhicin laa kusuufu shamsi walaa ixmiraaru samaa'i walaa ayi shay ma dhicin iyadoo ambiye la laayay. waxaa la warinaya waxba kama jiraan. cid ka fadli badan baa la dilay xuseen oo ah cumar iyo cuثmaan iyo cali iyo raggaasi oo dhan, waxba kama jiraan. idan ayuha alaxiba, ilaahay loo toobad keeno oo dambi dhaafa la weydiisto. ayuha alaxiba, almuslim alxaqiiqiyi kayfa yatacaamal maca alxadath. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna leeyahay laysa mina man latma alkhuduuda washaqa aljuyuub, kama yarwihi alimaam albukhaariy. nabigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam nagama mid aha kuwa isdhirdhirbaaxa ee maryaha jeexjeexa buu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam. bale xadiidka muslim nabigu wuxuu leeyahy ana barii'un min alsaaliqa walxaaliqa washaaqa. ana barii min alsaaliqa ay alatii tasixu bisawtin murtafic. beri baan ka ahay buu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam taqaylisa marka geeriyi dhacdo, iyo kuwa timaha iska xiira, iyo kuwa maryaha jeexjeexa buu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam. waxa uu nabigu leeyahy ina annaa'ixa in lam tatub fainaha tulbasu ywma alqiyaama dircan min jarb wasirbaala min qatiraan. waqaala arbacu fi ummati min umuuri اljaahiliya laa yatrukunahun alfakru fi اlaxsaab wاطacnu fi اlansaab wاlistisqaa'u biاnnujuumi wاnniyaaxa. nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay arrimaha jaahiliyadu samayn jirtay ee weli dadka barh sii wadi doonaan waxaa ka mid ah 4 oo ah
dadkoo nasabkooda la maago ama la ysugu faano adigoo reer hebel baan ahay ku faana waa min umuuri aljaahiliya. adigoo cidda kale iyasoo inan gumeed baa tahay yidhaahdana ama nasabkiisa dacniyo ciddaa kama tirsanid tidhaahdaana iyana waa min umuuri aljaahiliya. xidig hebel baa roob shubaya, xidig hebel baa noo galayna iyana waa umuuri aljaahiliya. qaylada iyo niyaaxadu marka dad dhintaan baroorta iyo istunkuna waa umuuri aljaahiliya. ithnataani fi nnaasi huma bihum kufr الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه مسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حديث السجن الثابت كهي واحد المام مسايناني بنانين قف دنتي درادي إن ليسوا درباحه أما مريها الله جيحه أما الله قيليه قفك مسلم كواجب كصارنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وياه مناءها قاب niyaaxada iyo buuqa iyo qayladu qaab ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu cibaadaysta maaha. waxay ka mid tahay ou nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam danbu sana baa lagu dhaafaa. cashuuro qofka sooma yugfar lahu danbu sana. idan qofka muslimka ahi inuu ilaaliyo maalinta cashuuro inuu soomo. markii la yidhi yuhuud baa soontana in la khilaafo daraaddeed buu nebigu tilmaamay haddii aan noolaado lain baqiitu xayan laa sumanna taasucaana waan ku dari doonaa buu nabigu leeyay sagaaloodkana. idan 19 culamada badh baa waxay idhahdaan waxaa kaloo iska fiican hadduu 9 ku dhaafo inaad ku darto maxay 11. ragga badh xadiidku inkasta u daciifiyeyna waxay sheegaan 3 maalmoodba haddaad soonto dhibi kama jirto. waxaan kusoo koobaynaa marka qisadan iyo warkeedu uu badan kara haddaynu islaana ka warrama, laakiin waxaan kusoo koobaynaa wax xaadita dhacday oo dembigeeda ciddii lahayd baa leh oo qaaday ibnu rasuulillaahi dishay iyo aalkiisiiba 12. muslim binu caqiil marka xagga lagu dilay halkana 20 baa lagu dilay. 12 qof bay dileen. waxaa la caruurba waxa ka nool oo ka hadhay zaynulcaabidiin calayhi iyo qura zaynulcaabidiin wiilka yara la odhan jiray kaasoo quraa dhashii nebi maxamed baa ka soo hadhay calayhi salaatu wasalaam. isagunbay ka tafirmeen waxa ka dambeeyey. idan inuu dulmi lagu dilay waa xaqiiqo jirta fi taariikh, laakiin qaab kale u dhaqmayaan maaha qaab diintu banaysay. allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca waarina albaطila baطila warzuqna ijtinaaba. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وانصر المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين وأقم الصلاة.